maanta waxaan isla arkaynaa sida loo diyaariyo natiijada ardayda. Sidaad arkaysa halkan waxaa noogu diyaarsan akademiyada magaceeda iyo sidoo kale ardayga marka nambarkiisa iyo magaciisa iyo sidoo kale maado kasta wuxuu keenay. Soo qaabkan loo diyaariyo oo naqshada sidaan horey aan soo sharaxnay casharo badan aan ka soo qaadanay. Dabcan qof kasta uu garanaysaa isleeyahay qofkan garanayna casharada dib u laabto. Waxaan ka bilaabaynaa totalka sida loo diyaariyo. Soo halkaas aad ujeedo waxaa noogu diyaarsan total noogu diyaarsan ama ardayga wuxuu keenay inta markaasi maadooyin marka la isku daro. Soo qaabka loo xisaabinayo waxay noqonaysaa equal ayaad leedahay equal marka dhahdid then sum ayaad qoraysaa sum markaa qortid kadib nambaradaana hal mar soo wada dooran kartaa markaa soo wada hesho kadib enter aad leedahay kadib si aad u hesho dhammaan totalka waxaad samaynaysaa kan koowaad tegaysaa laba mar aad dhagsiinaysaa ama click halkaas marka waxaad ku heshay totalka ardayda oo dhan. Soo hadda u baahatid average oo markaas arday kasto waxaad samayn doontaa sida tan socoto waxaad leedahay equal then waxaad qoraysaa average markaa qortid kadib waxaad samayn doontaa numberkan oo totalka ayaad waxaa u qaybin doontaa inta maado ardayda ay samaysay. Ardayda maadooyinka ay samaysay waa 1 2 3 4 5 6 lixa u qaybinaysaa marka kadib waxaad heli doontaa average heli doontaa oo arday kasta averageisa ayaad heli doontaa kan koowaad waa heshay kuwa kale soo jeedaysaa kaliya. Okay then dhima decimal point kan qaabka loo bixiyo iyo soo aragnay. Okay ardayga inuu baasay in kale haddii aad inaad waatid maxaa samaynaysaa asal aragno waxaa samayn doontaa qaabkan aad isticmaali doontaa waxaa isticmaali doontaa if ayaa isticmaali doontaa. Okay asal samayno marka okay waxaan leenahay equal if ayaan dhahaynaa so average ka isticmaali doonaa ardayga hadduu ka badan yahay 50 waxaan leenahay wuu baasaan dhahaynaa baas ardayga hadduu ka badan yahay 50 wuu baasay hadduu ka yar yahayna wuu dhacay. Soo saar oo qor doontaa very simple waaye kadib enter aad leedahay. So now ardayda haddii markaasi qofka hadduuba ka yar yahay 50 wuu dhici doonaa soo jeedid wuu dhacay. Okay waxaan haray sida grade loo diyaariyo halkan waxaa u jeedin ardayda markaasi baaska waxaa la saaray calaamadaas ardayda oo calaamadaas oo kalarkaas ardayda dhacayna kalarka la saaray. Soo sidee loo saaraa halkan waxaa isticmaali doontaa conditional formatting ayaa isticmaali doontaa oo ka saar doontaa haddii aad fahansaneen oo ku fahansin doonaa. Okay grade ka qaabka loo raadiyo asaga halkan waxaa noogu diyaarsan dhammaan grade-yada ardayda macnaha score-ka oo markaasi u diyaarsan score-ka ama akademiyada score-ka 0 waa E waaye 50 ma hadduu arday gaaro wuxuu heli doonaa D 60 hadduu gaaro wuxuu heli doonaa C 70 hadduu gaaro wuxuu heli doonaa B 80 iyo wixii ka badanna wuxuu heli doonaa A ayuu heli doonaa. Soo sidee loo sameeyaa aan isla aragno. Okay grade markaan raadinayna waxaan sameynaynaa equal aan leenahay kadib waxaan leenahay lookup aan ku raadin doonaa functionka lookup la dhaho lookup markaan doorano average isticmaali doonaa then waxaan leenahay comma kadib qaybahan ayaan dooran doonaa markaad dooratid kadib waxaad gelinaysaa dollar sign ayaad gelin doontaa then dollar sign aad gelinaysaa kadib enter aad leedahay then halkan waxaad heli doontaa arday kasta grade-ka uu keenay. You see hadda A ayuu keenay ardayga maadaama 82 uu keenay ardaygan E ayuu helay 46 markaasi waxay ku jirtaa halkaan lagu tirin doonaa konton wixii ka sarreeya dhidi heli doonaa ama wixii konton keenay. Okay waxaan noo soo haray sida loo raadiyo position ardayda position oo macnaha qof baa number 1 geli karo qof baa number 2 geli karo qof baa number 3 geli karo qaabka loo raadinaa. So position markaa raadinayso waxaa leedahay equal leedahay kadib waxaad isticmaalaysaa rank. Okay then markaad rank dooratid kadib waxaa leedahay totalka dooranaysa kan ugu horeeyo comma ayaad leedahay kadib kulli aad dooranaysaa kulli markaad doorato kadib dollar sign ayaad gelin doontaa kadib enter aad leedahay then halkaas waxaa arki doontaa arday kasta numberka uu galay. Soo hadda asla fiirino ardaygan ayaa ugu horeeyay 86 keenay maxaa la siiyay number 1 la siiyay soo jeedid ardayga number 2 ku jiro wuxuu keenay 83 ayuu keenay saasa marka positionka ardayda si fudud u ogaan kartaa. Okay haddii ay jiraan marka wax ku adkaaday oo aan sameyn weysay waad comment ku soo qor kartaa insha Allah si toos ah u sameyn doonaa. Mid kale TikTok ayaantan aad ayuu markaasi noogu dhagan yahay haddana custaan uu soo biro fulooda noo taabo haddaad nala sii joogtay aad mahadsan tahay share iyo markaasi laafta iyo wax la taabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.